أنا أشير قدوميني مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود haddaba maxaa ka jira wararka sheegaya in maanta miiska shirka golaha wasiirada la saaray in xilka laga qaadayo taliyaasha ciidamada wararkii ugu dambeeyay ayaan daawadayaal muuqaalkan idinkugu soo gudbinayaa sidoo kale daawadayaal waxaynu barnaamijka ku eegaynaa maxaa ka jira canaanta la sheegay inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dusha ka saaray xildhibaanada golaha wasiirada ku jira ee gobolada waqooyi ka soo jeeda maxay ahayd fariinta uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud golaha wasiirada ee ka soo jeeda dhinaca Somaliland uu u diray muuqaalkan daawadayaal waxaynu idinkugu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay shirka hadda soo dhamaaday ee golaha wasiirada ee uu maanta shir gudoominayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maxaa ka soo baxay soo dhawaada akhyaaray marka hore waxaan idinka codsanayaa muuqaalka haduu idin soo gaaro inaad meel dheer inoo gaarsiidaan halkan aad ku soo biirtaan si aysan idin dhaafin akhyaaray wararka iyo barnaamijyada degdega ah ee aynu daawadayaasheena halkan kula wadaagno haddaba soo dhawaada maanta dadka oo dhan waxay indhaha ku hayeen waxa ka soo bixi kara shirka golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya waxa shirka maanta shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana joogay inta ugu badan xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa sidoo kale shirka maanta goobjoog ahaa ra'iisul wasaaraha haddaba wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan inaanan maanta lagu soo hadal qaadin arrimaha ku aadan xilka qaadis iyo magacaabis intaba iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu golaha wasiirada u jeediyay fariin iyo sidoo kale inuu xildhibaanada iyo wasiirada isku ah ee xukuumadda ka tirsan ee baraha bulshada isaga jawaabaya ay gabi ahaanba joojiyaan arrintaana ay tahay mid suurad xumeynaysa xukuumadda dan qaran ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dhawaan waxaynu aragnay wasiiradii xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse oo hadallo xanaf leh isu marinaya baraha bulshada sida wasiir fiqi wasiir maxamed cabdi xayir maareeye sidoo kale wasiirka maaliyadda biixi iimaan cige iyo xubno kale oo iyaguna wasiir ah haddaba arrintii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku soo baxay iyadoo madaxweynuhu uu ku baaqay marka hore in la joojiyo arrintan fara isku taag ah ee xukuumadda dhexdeeda ka jirta sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxa uu dabcan golaha wasiirada gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda dhinaca Somaliland uu ka dalbaday inay shir degdeg ah qabtaan isla markaana ay ka hadlaan xaaladda Soomaaliya iyo sidoo kale go'aankooda waa sida ay wararku tilmaamayaan waxaana dhawaan aynu aragnay xildhibaano ka soo jeeda dhinaca Somaliland oo shir jiraa'id ay qabteen ku kala qaybsamay qaar sooma hadal qaadin arrintii aqoonsigii Somaliland si kale waxay fariin ugu direen dawladda federaalka ah inaanan reer Somaliland si qabiilaysan aan loo weerarin halka xildhibaano kale oo ka soo jeeda dhinaca Somaliland iyaguna ay shir jiraa'id qabteen isla markaana ay gabi ahaanba ka soo horjeesteen aqoonsiga Somaliland ay Israel ka heshay haddaba shirkii golaha wasiirada ee maanta ee sida weyn indhaha loogu hayay waxa dabcan uu ku soo dhamaaday in madaxweynuhu uu si weyn uga hadlay arrinta qadiyadda madax bannaanida Soomaaliya iyadoo sida ay wararku tilmaamayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu golaha wasiirada u sheegay inay Soomaaliya hal tahay isla markaana xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda Somaliland ee dawladdiisa ka midka ah looga baahan yahay inay cadeeyaan mowqifkooda iyo inay dabcan meel uga soo wada jeestaan difaacidda qarannimada Soomaaliya sidoo kale waxa shirka maanta uu ahaa mid aad iyo aad xasaasi u ah dadka ayaana si weyn indhaha ugu hayay haddaba daawadayaal wixii warar ee ku soo kordha shirka golaha wasiirada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaan akhyaaray idinkula wadaagi doonaa laakiin dhinaca kale akhyaaray haddii aynu eegno dalalka Sacuudi Carabiya iyo Masar ayaa waxa ay si adag uga soo horjeesteen isla markaana meel adag ka istaageen midnimada Soomaaliya iyagoo waliba taageeray in aan Soomaaliya la kala goyn waxay sidoo kale si weyn uga soo horjeesteen aqoonsigii Israel Djibouti Sacuudi Carabiya Masar iyo Turkiga ayaa xilligan noqday garabka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo oo bedelaya dalalkii gobolka ee horay ula saaxiibka ahaa Soomaaliya ilaa hadda Ethiopia lama hayo Kenya lama hayo Uganda lama hayo dalalkii xataa nugula jiray iskaashiga gees bariga Afrika kuma jiraan lagama hayo shir jiraa'id ama go'aano ama mowqifkooda arrintan ku aadan
iyadoo weliba dhinaca Somaliland dhankooda ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay rabaan inay dalal kale uga raadiyaan aqoonsi. waxyaabaha yaabka badan ee dhowr iyo 20kii saac ee ugu dambeeyay baraha bulshada lagu arkay sidoo kale waxa kamid ah in xitaa buggii weynaa ee Google uu Somaliland u aqoonsaday wadan isla markaana uu leeyahay waa wadan sida hoos aad ka aragtaan waa country ayaa ku qoran. Google markuu waxa uu leeyahay Soomaaliya iyo Somaliland waa laba dal. shirkadda Google oo ah shirkad dunida oo dhan laga isticmaalo ayaa si toos ah u sheegaysa waliba bogga Wikipedia wuxuu leeyahay Somaliland official recognized waa uu leeyahay oo waa wadan si official loo aqoonsaday oo aqoonsi haysta. sidoo kale dad badan ayaa isweydiinaya Google sida ay horay u ahayd Somaliland state Soomaaliya ka tirsan ay u lahaayeen inay haddana maanta go'aankoodii bedeleen. ugu dambeyntii daawadayaal maamulka Jubbaland oo si weyn loo hadalhayay inuu wax ka dhaho arinta ku aadan aqoonsiga Somaliland iyo inay dal madax bannaan tahay ayaa maalmahan ama saacadihii ugu dambeeyay si weyn loo hadalhayay. haddaba ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenkii maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa arinta ka jawaabay isagoo sheegay wixii ku saabsan cambaarayn iyo taageerid intaba inay dawladda federaalka ee Soomaaliya arin u taala ay tahay Jubbaland ay tahay maamul goboleed hoostaga dawladda arrimaha dibaddana aysan wax shaqo ah ku lahayn. waa kan waraysigii uu bixiyay. Jubbaland waa member of state kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya markii ka hadashay dawladda Soomaaliya ololaheedii ka hortageedina waa wadaa ma aniga ka hadalno ma anigu waan ku sheegay dawladda fayeen bay leedahay dawladda Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda leh marka anaga inaan ka hadalno hadda sharci noo ogolaana ma jiro marka mas'uuliyadda Jubbaland u taala ma aha Jubbaland maartay ma aha waa national level arrintaas waxa weeyaan waa arrin qaran weeye qarankana mas'uuliyad buu leeyahay aan isagoo ku sheegay anaga dawladda Soomaaliya ayaana la yiraahdaa dawladda Soomaaliya arrintan waa ka hadashay dawladda Soomaaliya ayayna u taala ma aha arrin isteediyada u taala ma aha arrin maaragtay wasaaradaha kale u taalo waxa weeyaan siyaasadda dibadda iyo boolisyada iyo midnimada dalka nin baa loo dhaariyay. bismillaahir rahmaanir rahiim anis waa mahadsan tahay universal wa salaamiya waxa ay qaaday tilaabo dhabarjabka dawladnimada iyo jiritaanka Soomaaliya waxay tiri waxaan aqoonsi siiyay Somaliland oo kamid ah maamul goboleedyada dalka ilaa haatan Jubbaland kama aysan hadlin. waxa ay dadku isweydiinayaan Jubbaland oo maamul ah waxa ay arintaasi uga hadlaadahay maadaama xadgudub ay sameysay Israa'iil. maxaad kaga jawaabaysaa madaxweyne ku-xigeenkii dawlad goboleedka Jubbaland tahay? runtii warta Soomaalidu iyo beele Soomaaliya waa hal dawlada dawladda federaalka Soomaaliya la yiraahdaa madax bay leedahay yay tahay inay ka jawaabaan waxyaalaha dhacay waxa weeyaan hoggaanka dalka ayaa ka jawaabay filla Soomaaliya ayaa mas'uuliyadda leh ayada accountable u ah cid kasta oo maaragtay siyaasadda dibadda ayaa hoggaamiyay lama baahna inuu qof kale ka hadlayo siyaasadda dibadda hoggaamiyo ayaa laga rabaa dalka midnimadiisa iyo difaaciisa iyo ciddi ku soo xadgudbayso marka mas'uuliyadda Jubbaland u taala ma aha Jubbaland maaragtay ma aha waa national level arrintaas waxa weeyaan waa arrin qaran weeye qarankana mas'uuliyad buu leeyahay arrimaha dibadda baa jira siyaasadda dibadda baa jirta maaragtay Jubbaland waa member of state kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya markii ka hadashay dawladda Soomaaliya ololaheedii ka hortageedina waa wadaa marka town bay Jubbaland kamid tahay ma aha wax maaragtay baarta gooni oo maaragtay inay ka hadasho loo baahan yahay. way maamul goboleedyada kale laftigooda war qoraal iyo cambaareen ay soo saareen idinku intaas xataa maxaa laga helilayaa? waa hadal badni cid soo saarayso kale waxa soo dhan waa iska hadal badni weeye wax loo baahan yahay ma aha waxa weeyaan waa arrimo issue qaran weeye marka qarankii hoggaan buu leeyahay madaxweynaha jiro ra'iisul wasaare jiro wasaaradda arrimaha dibadda jirto marka ayaga ayaa iska leh dastuuriyan barnaamijkaas marka cidda kale oo hadlayso waa iska hadal badniyo dalka waa hal dawlad weeye dawladda safkeedana cidda ku hadlayso oo dastuurku u geliya sharciga ayaa u ogolaaday marka arrinta halkaa weeye